السلام عليكم ardayda kusoo dhawaada casharka Swahiliga waa qaybtii 18aad casharkan waxaan ku baranaynaa vifaa vya jikoni soo kan waxaad dhihi kartaa vyombo alaabaha ayaa dhihi kartaa labadaas magac way leedahay vifaa vya jikoni waxa laga wadaa alaabaha laga helo jikada ayaa rabnaa magacyadooda oo Swahili ina barno lambarka ugu horeeya waxa waaye sufuria digsiga waaye birika jalmada ama ibrikina waa dhihi kartaa baa ka hormarin kartaa laakiin birika waxa waaye jalmada kijiko qaando kisu waxa waaye mindi karai ama kikanga waxa lahaa frying pan af Soomaali magacyo badan bay leedahay laakiin وباش وكنت لو كرسدو iyo canjeerada marmarka qaarkood oo dhigta leh waa waxa weeye fargeeto kifuniko waxa waaye dabool kichungi waxa waaye shahmir ama basmir labadaba waa loo isticmaalaa mwiko waxa waaye mikaha soorta lagu karsado ogaalida ama cuntada lagu karsado chakula waa cunto markii la leeyahay waa dhammaan cuntada noocyadeeda kala duwan mid qalalan iyo mid qoyan labadaba waa isticmaali kartaa adaba intaan aragna jumladii sida loo isticmaalo inta qaybta kala garin salahaan oo kale lamida ugu horeyso marka jumlad ku isticmaalayso waxa leedahay osha sufuria kidogo amara bixinaysa ama qof shaqaalaha waxaad ku leedahay dhaq osha waa dhaq sufuria digsiga kidogo yar digsiga yar dhaq baa leedahay pika chai shah kari kwa birika jalmada ku kari ibriqa ku kari ayaa leedahay shah okay kijiko kubwa kimepotea kiidan halkan waxa waa kiambisho waaye ingeli waxay u laabanaysaa magacaan uu ka tirsan yahay waa soo barnay ingeli kooxda oo magacaan ka tirsan yahay waa ingeli kivi allah so that's key oo isticmaala ama waa dhigi kartaa dada iskuule ahayn so marka xala kijiko kubwa kimepotea qaandadii weyneed kijiko waa qaando kubwa weyneed kimepotea way dhuntay. Alright, mama anatumia kisu. Mama wa hooyo anatumia waxay isticmaalaysaa waa anatumia waxay isticmaalaysaa kisu mindi kukata si wax ugu jarto ayay waxay isticmaalaysaa